intaas marka aan gaarno hawaaye laba si unbaa wax loo sameeyaa soo maaha inaan idin muxaadareeyo oo inta muxaadaro fiican idin akhriyo oo aad jadbootaan oo markaa ka bacdi aad su'aale u weydiisaan waa qaab ma ogtahay laakiin qaabkaasu aniga micno ila ma leh ma muxaadaraynayo waxaan idinkugu talagalay inaan sheekaysano marka waa idin sheekaynayaa sheekada intaan ku jiro su'aala warsan kartaa gacantaa taagi kartiin waan cad soo maaha inaad daashiin lama rabo marka meeshaan waxay noqonaysaa sheekaysi aan wax ku fahmna waay hadafka ra'iisiga ujeedada ugu weyn waxaa waaye in ana wax isla fahmna waay su'aalaan marka ku bilaabayaa su'aashaasna waxaan rabaa inaad ka jawaabtiin su'aal muhiima waaye haddii adaa su'aal iswarsana كلمة اللي يرادها واي لماذا هدان لا يسورسنا اسبدل ما بجرى بقى واحد بدل ما دعايو مركز سؤال شو ugu horeys Soomaaliya waxay dawladdeedu bilaabatay 1960 lixdan iyo shan sano ka badan ayaan magacii dawladnimada haysanaa waa naga duntay dagaal sokeeyaan marnay mar labadan carta haddana ku noqonnay tagnay 25 sano ka hor haddana waxaan sameynay dawlad lagu dhisa 4.5 haddana meesha ay marayso waa wada ogtihiinoo sheegid ma rabto maxaa Soomaaliya dawladnimadeedu u xasili la'da maxay dawladnimadeedu u dumaysaa maxaa dawladnimada la isugu haystaa maxaa doorashada la isugu haystaa maxaa dastuur la isugu haystaa sidaatan sin ma tahay maxaa aan uga bedelanahay adduunyada inteeda kaleeto su'aashaas ayaa idin hortaala inaad ka jawaabtiin marka waxaan rabaa inaad gacanta taagtiinoo microphone aad siisaan microphone siiya ay uga jawaabaan su'aashaas qofkii ka jawaabaya gacanta u taagayaa markaa ka bacdi baan ka doodno ayaa waxaan arkaynaa maxaa yeelay markaas ka bacdi waxaan arkaynaa jawaabta saxda ah inay noo soo baxday in kale sababta su'aasha idin weydiinayo waxaa waaye sababtan idin weydiinayo su'aashaas waxaa waaye way ogtihiin waxaan idin weydiinayaa maxaa yeelay su'aasha la isma warsado waxaa loo maleehayaa in dawlad soo socoto xataa Soomaaliyeed oo jid dawlad lagu socdo 65 sano maxaa loogu socawaa jidka dawladnimada maxaa loogu socawaa haddii marka aad dhalinyaro tihiin su'aashu waxaa waaye ma sidaa tanaad rabtaa inaad ku sii socotaan mase jidka leedahay ayaad cabiranaysaan oo jidkaan aan ahayn waa halkaas waaye jawaabta meesha ay sugayso marka microphone-kaas wareeji gacanta hal la taago ruuxii gacanta taaga ayaa la siinaya microphone-ka inaad ka jawaabtiin waa la rabaa runtii waa ku faraxsanahay inaan caawa aan goobjoog u ahay annagoo ka sheekaysanayna horumarka dalka iyo bulshada iyo islaamka sidoo kale waxaan rabaa inaan mahad celiyo arkaan leadership walow ay tahay habeenkii koobaad aan kasoo qayb galo runtii platform aad u qiimo badan iyagana waa mahad celinayaa su-aashii haddaan marka dedejiyo waxaan isleeyahay 65 sano waxa aan horey la aadi la'nahay waxaanaan fahmin annaga waxa aan nahay koow waxaan nahay bulsho Soomaali ah dhaqankeeda uu mid yahay diinteeda islaamkuna ay mid tahay asal ahaan waxaan ugu xeeraa markii dib loo raaco 1884 shirkii Berlin waana loo qayilay niman u tashaday in dalkeena raw materialkiisa maca annagu aan ku jirno ay qaataan dadka xataa raw material waa aqoonsaday Afrika gaaraan Soomaaliya waxaana lagu talagalay in la qaybiyo qaabkiina lagu qaybiyo waxay tahay annaga inaan fikirin waxaana loo dhisay dhaqan qaab daran oo qabyaalad la yiraahdo annaga marka diinteena islaamka xaggaan dhignay qabyaaladan qaadanay number 1 ah waxa ugu maqaalaa nin Talyaani ah waxa la weydiiyay Soomaalida maxay ay jecel yihiin maxay nacab yihiin wuxuu yiri dadka Soomaalida saddex ha ka taaban saddexdooda dad kala dooransiiso waxa suurtagal ah saddexdooda waa geela iyo diinta iyo qabiilka koow hadii la saddexda isku haysan ma saara mid keena diinta banaanka ka taala number 1 naga qabsaday leeyeen labadan kale geela iyo qabiilka naga taabana hadii la labada isku haysan ma saarna geelay banaanka keenayaan qabiilka
soo gaabi waa soo gaabin rabaa marka waxaan rabaa marka inaan sheego annaga waa inaan u laabano asalkeena waxa ay nahay qabyaaladda waa inaan xagga iska geyno waa inaan midnimo qaadano waa ognahay caawa u jeednaa israa'iila waxay soo magacaawday gobol ka mid a gobollada waa gobol degmaan dhihi karnaa hargeysa degmo ina dhanta ma u malaynayo ay waxay usoo magacaawday qof u matala ayaga oo governor usoo magacaawday marka waa mahadsantihiin aad iyo aad baan idinkaga mahad celinaya professor waa mahadsanta thank you so much maxamed gaadac wuxuu yidhi mushkilada koobaad waxaa waaye isticmaalaana qaybsaday markaasay waxay nagu imboosgareeyeen nidaamkoodana nidaamkeenna ma waafaqsana waxaan isleeyahay soomaalinimadu ilaa haddeer waxay la istaagi la'dahay inaan abaalmarinay dadkii burburiyey oo ka qayb qaatay inay aan manaha dowladnimadeen inay sii hagaagto dadkii ka qayb qaatay inay burburto ayaan sii abaalmarintii dhallinyaradanimada in la siiyo oo maskaxda la shiilo meesha way ka baxday that's why baa weli fikraddii ahayd in wax la burburiyo dalku dhex dabaalanaya waa la garta aad baa umahadsantahay waxaa la abaalmariyey dadkii dalka burburiyey haye si su-aashii haddaa toos u galo waxaa waaye soomaaliya waxay la xasili la'dahay cadaalad iyo hoggaan xumo anoo soo koowaayo cadaalad iyo hoggaan xumo haye waa mahadsantihiin aad umahadsan magacay waa Naciim Cumar Axmed haddaa su-aasha jawaabteeda hore u galo Soomaaliya maxay u noqon lahayd ama maxay u xasili lahayd dowlad nidaami ah su-aasha sidaas samaha horta dadkii dhashay baan ahay dowladda dabadeeda yacni muhiimadda aan ka hadlayana waa inta fahamkayga garaadkayga gaarsiiyo oon isleeyahay xaqaa maqan waayo Soomaaliya markii la dhaho waxay yacni magaca Soomaalinimo ama dowladnimo u yeelalaada waa in ay iyadu naftirkeeda ama shaqsi walba oo Soomaali ah uunan aaminsaneyn isagu waxa uu yahay يعني originally sida dhabta personality-ga meesha ka soo jeeda ama wadankaaga markii aad aaminsantahay magac uu xambaarsan yahay ama masamka ama xubinnimada ee wadan uu leeyahay territory hanti iyo dad iyo dhul iyo sharci xaq ahaan qofka Soomaaliga ah qofku doonaa siyaasi ama qof caadi shacab ah qofka horta ma yahay qof Soomaalinimadu ay dhabta tahay يعني دبك تهاي آمنسان كالنتيسي وديننمو والله قرت مقعي ورملي أحمد حسن نحاشي كرا إلا يو قضبة يريرة نويد كواد وقبيل إقل بسنان إني سومالي إلى هاي دجال سكي ميد أمني درقة يو فرجلين شيء ونجو هايان يو مسوق ماسوقي مع ملحمو دقال الدريدة أنت ساكني كرتين سومالي حاسلين وما صنتها مقعي وحليم الشق إسماعيل دكتور أدا وفرح سنة برامجك أنا هالقضبة كسوكوبايا أنت كلا نحن قريبا أصحابت وحسلايا وحبر الشيري صوبتو جاهل ما هيس ها صوبتو قف دي أنا وحبرنين وحاول دولة نمد عصرية إيوه جامنت إيوه لما جاري كر أنت سوكوبايا ما صنتها هاي سؤال مقعي محمد حسن واي سؤال شد هور وقال وحندي كرا سومالي بدن كين وحنجعلنا هو جامنتا قفل بنحور مركين وضد هو جاميو مركز سومالي أفيري دقمة ضوضة وما ديار سنة معناها إني وحوجامين كران أيجن إن لما أمولنا مربان مركب وحياباس ليه وحاكم ذا إن أيج الله دياري يصير الله حوجامين لها. وما سنت دكتور أنا قطب كاس بوجي وكجاه اللي لبوا قطب عن قصوكوا إن شاء الله مقعي عبد الرحمن إبراهيم قريش قراءة بوجه هالدور كدل كه ملوين كان أفضل الصوماليات قراءة ووري وأرجلاء الصوماليات. وحنسلي هاي وحنا هاي ومد isku dhaqana isku diin ah waxaan qaadanay federalism qaadanay marka uma qalana inaan federalism qaadana maadaama isku dhaqan isku af iyo isku diin aan nahay marka qodobkaas aniga u bixilaa mushkiladu waa federaal haye professor Maya Abdaas Cabdi Qaadir waaye arday jaamacad umada dhigta ahay kaliya hal eray inuu soo koobo rabaa dawladda daaqliga kadib ilaa halahan dalka siyaasad geelay oo ku jira dibka taas keeni kartaas geelay oo ku jira haye bismillaah horta maanta wadankeena waxay oo dawladnimo ay u saldhigi weyso waxay tahay waxa la yiri maxaa wadankeena burburiyay wadankeena waxa burburiyay qaad qabiil iyo qori maxaa lagu bedelaa yiri waxa lagu bedelaa tacliin taqwa iyo toobo tacliin taqwa iyo toobo hadii la helo Soomaali raas Kaamboon raas Caseer iyo Jul Jawaar waxay noqon doontaa nabad mid kale waxa kale oo baabiyay cadaalad daro qabyaalad أنتاس يا بابي أنا هل سؤال أربعة بروفيسور إنه ويديو. سؤال شان ويديو وحتى ما أنت ودن كينا
madaxda ugu sareysa maktabada ugu sareysa laba beel ayaa hadda qabataa habii daarood maxaa u diiday inay naqdaan beelaha kale sida banaadiriga iyo jaraweyne in ay salka ugu sareysa maktaba ugu sareysa ay qabtaan maxaa u diiday taas ayaan rabaa wabilaahi tawfiiq waa ka jawaabaya su'aalaha ma gala dhammaan ka jawaabaya magacaygu waa maxamed salaad maxamed dhigta arday jaamacadda ummadda Soomaaliyeed hadda su'aashaas ka jawaabo waxay tahay marka koowaad waxaan la fahansanayn caqabadaha markaas taagan waxaa loo baahan yahay in muxuu ahaa wax walba caqabada markaas taagan lagu saleeyo si looga baxo problemka markaas horta qodobka ugu horeeya oo ka soo baxday sheekaysigaynaan iyo su'aalaha dadka ka jawaaba waxaa waaye inaan isku waafaqsanayn sababta 65 sano dawlad xasisho Soomaaliyeed ay u jiri weysay yaa isku waafaqsanna macnaheedu marka wax la yaab la waaye inaan 65 sano dawladdeena ay xasili la'dahay oo muxuu ahaa ay naga dunta dawladdii 30 sano ka bacdi oo 35 sano ka bacdi ay ka dambaysay oo 25 sano aan dawladdii carta laga soo bilaabay aan dawlad ku dhex jirno waa 4.5 ku dhex jirno oo ilaa haddeer aanan su'aasha inta iswarsanay aanan ka heshiinin oo aanan dhihinin mushkiladaynu waa sidaas xalkiina waa sidaas saas ma aha marka taas horta hayda la jirto horta warcad maho waxaan marka rabaa marka inaan hadallada inta aad sheegteena rabaa inaan sheego ku celiyo waxaad tidhaahdeen mushkiladaynu waa bulshada Soomaaliyeed dadka Soomaalida mushkilo ah dadka Soomaalida waa qabaa'il qabiilna ma jiri karo qabyaalad la'aan ma jiri kariyo qabiil hadduu jiro qabyaalada jirta marka dadka Soomaaliyeed ayaa mushkilo ah oo qabiil waaye waa qabyaalad macnaheed saas diileed waxa waaye dawlad ma noqon karno waaye ogaada qabiil waaye iyo qabyaalad hay waa yihiin qabiil iyo qabyaalad ma laga tirtiri karo waana jiraan ilaa yawmidiin qabiil ay noqonayaan qabyaaladna waa sameynayaan marka macnaheedu waxa waaye Soomaaliya dawlad ma noqon karto haddii la yiraahdo mushkiladu waa qabiil iyo qabyaalad maxaa jira adduunyada dhammaan qabyaalada Kenya meeqa qabiil waaye marka isdoorahaayaan qabiil isku doortaan Ethiopia darisna la ah meeqa qowmiyadood waayo kala af oo kala diin oo kala dhaqan mada qabaa'ilkan Soomaalida isku afka isku diinta isku dhaqanka la yaqaan ma problem maxay u yihiin yani oo kuwa kala problem ay noqon waaye dadku waa kala diin waa kala dhaqan waa kala af dawladna waa yihiin qabaa'ilna waa yihiin maxaa aniga qabiilkeena marka kaliya oo mushkil u yahay marka horta qodobka ah qabiil iyo qabyaaladna loogu celceliyay wax ka jira ma laha ogaada yani mushkiladu halkaas ma jirto mushkiladu maxaa jira dadka elite-ka ah madaxda ah ee dalka madaxda ka ah ma rabaan inay mas'uuliyadda qaataan waxay leeyihiin annaka waa fiicannahay mujtamaca Soomaaliyeed ayaa mushkiladu ka taagan tahay asiga ayaa jaahila waa jahli asiga ayaa faqiir ah asiga ayaa qabiil sameeya bulshada Soomaaliyeed mushkilo ah waay soo taas ma aha sahdii leeyahay mushkiladaas waay mushkiladu mujtamacu waa jaahil laakiin ummadda naga jaahilsan jira oo dawladda ah ummadda waxaa jirta naga faqiirsan oo dawladda ah ummadda qabaa'il oo annakoo kala ah oo dawladda ah marka ma la dhihi karaa bulshada Soomaaliyeed dawlad laga sameeyay waa ma la dhihi karaa waxaas hadal waay sheeko waay waa waxana loo akhriyay oo aan rumaynay oo beenta ah 1943 laga bilaabo markii loogu celceliyay qab mushkiladiinu waa qabaa'ilatihiin qabaa'ilku dawladnimada mushkila kuma aha waxa la akhriyaana waxa waa wax ka jira lama arko maxaa yeelay waa la daaway waay inteeba loo heesay inteeba loo gabiyay inteeba la dhagaxiyay inteeba la aasay qabiilan aasayna qabiiladan ka baxaynaa leeyri ilaa hadda la akhriyo waaya siyaasiyiintu akhrinaya qabiilada ma xoogaysta ma soo yaraatay ka jawaaba waa xoogaysatay macnaheedu waxa waaye wixii la sameeyayo loo heesaayo loo gabyaayo beenay aheeda waa la kubcinayo marka taas ma tahay marka beentaas ma ku noolaa rabtaa ninka dhalinyarada tihiin waxaad caawa igu yeertaa inaan waay arrinta Soomaa horta beentaas meel iska dhiga qabiila asaas iyo qabyaalada asaas iyo waxaas la akhriyaa waxa la teen akhriyaa waa been la akhriyo la dhoobo waaye marka iska dhaafa dawlad kuma noqonayo qabyaaladna looguma adkaanayo sidaas taa meel masal dhigna
qodobka labaad oo aan loo akhriyo waxaa waaye oo la sheego maya mushkiladaynu waa isticmaarki waa dowladaha ajnabi ah waxaan dowlad ka noqon weynay Ethiopia waxaan ka noqon weynay Kenya waxaan ka noqon weynay Talyaani waxaan ka noqon weynay Mareykan oo cadawna la dowladaha ajnabi ah dhul weyn aan ku naalaa dhul muhiim ah ku naalaa mushkiladaynu waxaa waaye waana la qaybsaday waana la yeelay waxaasana la yeelay asan dowladda noqon weyn waxaas waa jiraan sida ay u jirto qabyaalad oo hadda mushkil noqon karta inaysan qabyaaladu mushkil ahayn maaha laakiin asalka ma aha mushkiladu asan ka hadlaynaa markaan ka hadlaynaa dowladahaasuna waa jiraan laakiin adduunyada dowladaha jira ogaada ixsaan la iskuma sameeyo dowladda laga xoog badan yahay amba xoogaa lagu qabsadaa amaba si soft ah loo qabsadaa oo dhaqaalo ayaa laga qabsadaa siyaasadda laga qabsadaa caqliga laga qabsadaa sida Afrika loo haysto dhan kulligeed Afrika waa la haystaa weli marka ayadana waa jirtaa laakiin dowladaha waa nala mid yihiin dowlado badan nala mid ah oo la qaybsaday oo xuduudooda qabiilkooda kala dhex dhigay Afrika oo dhamaasta ah waxaa la yiri qabaa'ilka dhan baa xuduudda kala dhex dhigay mastarada la soo qaata saa la jeexjeexay marka isticmaalaan haysan jiray 65 sano ka hor war aydana justification loo heli karo ma aha marka bulshada yaa khaldanna justification ma aha isticmaalaa khaldanna iyo dib noo keena dibadaha noo ka marka mushkiladu xaga ku jirtaa marka waa mushkiladu waxay ku jirtaa hadda halkan maxaa lagu magacaabaa arkaan leadership Soomaa mushkiladu waxay ku jirtaa hoggaanka Soomaali amba elite aan ilaa nuqbada ugu sarreysay dalka hogaaminaysa oo madaxda u noqonaysa ayaa mushkilada ku jirta horta ina qirtaan ma rabaan ina yiraahdaan mushkilada annaka marka idinka waxa aad qarataan hadda ina tiraahdaan adan dhihinina qabiil adan ku mashquulina waxaas in aad dawladda ajnabiga dhow ah dawladda ajnabiga waa jiraayaan weligood qabiilku weligiis waa jiraaya laakiin maxaa la rabaa hoggaan dadka ka saara oo la falgala qabiilkaas oo la falgala dawladaha ajnabiga ah ee raba dalkaaga inay wax ka qaataan hoggaan la falgala oo amba iska celiya amba wax ku darsada amba si hasmaho la falgala raba hoggaan la falgala la raba arintaas oo dawladnimada marka aas sax u dhiga ayaa la rabaa intaas su'aal ma ka jirtaa su'aal ma keenina laakiin horta su'aal waxa waa inaan fahamno yaan beel isku akhrinin bulshadayna khaldan iyo isticmaar wax ka qaba weynay su'aashu waxa waaye waa jirayaan labadaas yaa shaqada qabanaya oo dadka inta isku leexsada oo Soomaali jid sax marsiya la mucaamaltamaya cadawga dibadda ah amba dawladaha ajnabiga ah iyo bulshadan qabaa'ilka ah yaa inta la falgala hoggaan inta u noqda ummadda isku leexsada ilaa mushkiladayna adduunyada ilaahay hoggaan waay hoggaan ayaa wax dumiya hoggaan ayaa wax dhisa waa saas annaga hoggaanaa dalkayna dumiyey hoggaanaa soo bixi la dhisa taariikhda Soomaaliyeedna hoggaamaa ka soo baxay waxaan u malaynayaa modelisaa jira markii hoggaan ah oo la dhihi karo dadka la horkeeni karo waxaa madaxweyne ugu horeeya Soomaaliyeed Aadan Cabdulle Cusmaan waa la horkeeni karaa asmaho 7 sano ayuu madax u ahaa dalka Soomaaliyeed buugayga Soomaaliya state in search of exceptional leadership oo Carabina ku qoran Ingiriisna ku qoran waa yaala bookstore-ka waa yaala qofkii raba inuu akhristo akademiyadan waxaa la rabaa inay ka shaqeysato halkan waxaa waa tusaalooyin jira ra'iisul wasaarayaal waxaa jira tusaale noqon kara waxaa kamid ah Cabdullaahi Ciise waxaa kamid ah Cabdirasaaq Xaaji Xuseen waxaa kamid ah madaxweyne tusaalaha waa Aadan Cabdulle Cusmaan maxay tusaale ku yihiin marka oo maxaa madaxda Soomaaliya ay u khariban tahay elite amba nuqbada amba haldoorka dadka lagu magacaabo maxay u khariban yihiin dhaqan siyaasadeed jira marka political culture الثقافة السياسية ثقافة سياسية هو سميسن تاجرت waxay ka soo bilaabataa thaqaafada Talyaani xukun Talyaani ah oo laga dheehday nidaam dimuqraadiya lagu magacaabo
iyo dowlad system loo dhiso dowladeed kabacdi waxaa ku xiga dowladda Soomaaliyeed ee 9 sano hore oo dhaqankaas inta qaadatay falsafikaanaysa been ka sheegtay doorashooyin la dhacayo la xoogayo la boobayo ilaa ugu dambaystii ay gaartay in madaxweynihii Soomaaliyeed oo dhaqan ahaynba in madaxweynihii lagu dilo askarna ay xukunka qabsato kow 20 sano niman askarahana xukumayay hanti wadaagay keeneen idinka ma soo gaarina magaaladan waxaa aala jiray booraraas waraa jiray Marcus iyo Angeles iyo Lenin la yiraahdo waa niman garar waaweyn oo culumadeyna u eg dadka marka waxaa leeyahay culummo waxaa idin aqwaan Marcus culumada kale baa la dilay 1975 la dilay kuwaana culummo idin aale waa niman gaala ah adiga oo aan diin rumaysnayn oo laakiin shuyuukh u ahaanta wadaaga u ah ayaa la culimadiina waa kuwaanaasay magaaladooyinkaas waraa jireen محمد سياد برنا مصور كل جرجر مركب محمد سياد برا يصدح هذا الشيخ يا ماركس أنجلس يلين الأي مقالة الناس وراجر وقت قاس أنا كسوق كان يرى أنا زي إنك وكلا هاي دجال سقي شعبي قبل دجال لمي دجال دولة دول هذي قبيلة لقب سمق فوق وحكم بدها إنه دول عرتان تكني قبيلة لقوا قبيلة حكم كان دهني شيء 20 سنة دحمرينا فدراليزم هذا نقول درني فدراليزم كنا وانا جهل ليسن هاي قبيل كفار باتفاها ليسن هاي الدولة وحسين لا لماذا يحسين لا بس كقارب مركب حيرهم مشكلة ذا إنه فدرال ها فدرال مياه ها أو تي هرا ديمقراطية ده ما هي فساد سجل كيس أنا هرا ما هي فدرال ما نهين فدرال ما نهين مايا سو مش قيوين سجل كيس أنا هرا مش قيوين وينه هاي تيكو حقتنا برسانشال سيستم أبو أهابا مدحوينها أيابا دالك حكومة كلي سر الوزاري وعاصم مجري هاي محمد سعد برا دالك كل حكومة بدك أهاي حسنا ما شقي واسمه والله دقالم وما هو شقي ويس كبعدنا فوربان تفافن قاضن فوربان تفاف كانوا بعرفت حالة اسمها شو مرة لما نكو كل عقب بدن يوم بابا بارمان كل سوق جالس وما والله سقطنا هاي حدنا وعنكم مشغول سنة هاي دورشة qof iyo cod aan ku mashquulsanahay in heshiis lagu ahayn iyo dastuur aan heshiis lagu ahayn sabaas ma marka ma system dawladnimo la yiraahdaa systemka dawladnimada ma naga khaldan ma naga ma khaldana maxaa jira systemkaan wuxuu ka shaqeeyaa adduunyada dhan ka shaqeeyaa federaalka adduunyada waa ka shaqeeyaa dawladaha qaar qaateen ma garatay xataa in qabiil wax loo qaybsado forbaan tafaafa kaleeto Switzerland iyo kale maxay qaybsadaan waa kala qowmiyad kala duwan waay markaas xukunka waxay u qaybsadaan si qabiilnimo ay u qaybsadaan وعلى قيب صدا حكمك هاي حكمك وعلى قيب صدا أدوية برسانشال سيستم واجريا أو شقي ديمقراطية شقي سواجر تا أدوية محانا كديمقراطية نوجو شقي ويس أو سيستم برسانشال نوجو شقي واي أو فوربان تفهم نوجو شقي لا أو فدرال نوجو شقي لا مشكلة هذا سيستم كمية ما سيستم كما لكن مشكلة قبيلنا ما دبتا دولة كي من ما سيستم كان معه مشكلة هو شخص هجامنا يا ضدك صوماليات واحد شخص معه شخصيات هجامنا هجامتنا معه هجام السياسات كلها معه وهجامك دقنك وهجامك السياسات وهجامك دقالة وهجامك انستوشن هذا وهجامك سكول هذا وهجامك جامعة ومال كستو هجام لو جاب هاي level kaas ayaa anaka waxaana ka jirta ضعف waxaan naga haysta hogaaminta maxaa hogaaminta dhibaato nooga haysta leesh yani maxaa institutionadu waxay ku dhisay yihiin qaanuun asmata qaanuun haddaan meeshaan qaanuun ka jirinin waxba kama jiraan dadku maxay heshiis ku noqonayaan haddaan qaanuun heshiis lagu ahayn marka sababta Soomaaliya intooda badan qaanuun diid waay marka qaanuun diid waay hay-adaha waa aragteen shirkadaha waa aragteen meel kasta waa aragteen qaanuunkaa la diidaa war qaanuunkaan aan heshiiska kunaa ma samaynaa ma la iskhilaafi lahaa hadda dowladda Soomaaliya ma iskhilaafi lahayd haddii qaanuun lagu socdo haddii qaanuun lagu socdo macnaheedu waxaa waaye haddii qaanuunka la isku khilaafo maxkamadaa la tegi lahaa soo ma maxkamadaa lagu kala baxaa laakiin qaanuun baa lama rabo saa darteed marka waxaan halkan qaybtan waxaan kusoo koobaya marka waa ku dheeraadee inaad fahamtaan rabaaye mushkiladaynu waxaa la sheegayaahu waa faktarra ka mid ah mushkiladahayna qaybo ka mid ahoo mushkiladahayna kobci kara waay had ma tahay
bulshada iyo qabyaaladeeda isticmaalka dowladaha dariska kuwa nala ah kuwa madamcaaya waa qaybo ka mid a laakiin kan ugu muhiimsan kaas maaha yaa xallihaya waa mushkiladii xalliha alfaacil la rabaa yaa ficilka samaynaya waxaan xallihayo la falgelaya hoggaana la falgelaya marka ummadaha waa aragteen moolka gaama soo maaha waxa u xalliyey ya ummaddan isxasuuqta 800 qof kun la xasuuqay uu xalliyey soo maaha hadda horumarkii maray soo maaha maleeshiyana nimaa ka soo baxay soo maaha xataa etoobiya dhima rabta milazanaa baa ka soo baxay oo isku dabariday inkastoo qabiilkiisa markii dambe u eexdo markii dambe balaaya ka dhacday asma tahay ordogaanna turkiya xaggee joogta haye ninkan putin la yidhaahdo ayadoo mataqaana ruush oo burburay soo inuu iska celiyo ma go-aansan mataqaanaa feeri adduunyada ilaahay ruux madax hoos soo baxa ayaa dhisa ummad burburtay ka soo qaada dhulka amaba ummadaasoo ummad fiican ah ayuu intuu ku habsado dumiyaa waxaa jir wuxuu dumiyahay qiyamkeeda iyo qawaaniinteeda iyo wadajirkeedu baabi'inayaa waana og tihiin meelaha dowladaha dhan kulligeed ka socdaan iyo soomaaliya xaaladaas ay u taalo sheegid ma rabto halkan waxaan kusoo khatimaa marka dhaqan siyaasadeedka siyaasiyiinta soomaalida kusoo sheegaysa hadda hoggaanada kale iska dhaafaya waxaan sheegayaa siyaasiyiinta mushkila ah soo ma koobaad soomaaliya dhaqan siyaasadeedkeeda soomaaliya elite political culture afar waa arkaan alarbaca la yidhahdaa هذه الاركان الاربعه حفظيه marka ولا تكونوا منهم يعني أنا كم من نقول أفر تاسك إلاش أنا الحفظ صار ربوت سي أركان الإسلام كأحفظ صار ربنا الحفظ صار أركانك أفر واحد كو سياسة قبيلة سن سياسة ولا قبيليها سؤال قبيلك ما يجعلهن سياسيين قبيلك هذا مجعلهن ما جعل قبيلك وحاوي آلد لأذيك سنايو oo loo adeegsanayo xukunka in lagu gaaro oo dhibaato ka soo gaaraysa ruuxaas madaxda noqday reerkiisa maxamed siyaad bare reerkiisa dhibaato ka soo gaartay waxaa ila askar inta ka dhigtay oo yiri difaaca markaasay difaaciisa ku baaba'een asmata nin kastoo ka mid ah hadda cabdullah yuusuf waa la mid aydiid waa la mid muuse suudi yalaxo waa la mid maxamed deere waa la mid qanyara waa la mid الدفاع ويرسمه دغال وقالين marka waa u dhinteen lacagtoodana waa isticmaalay dhiigoodina waa isticmaalay laakiin wuxuu u qabta waay iskool ma u furay bar caafimaad ma u sameeyey waddo ma u sameeyey shaqo ma u abuuray wuxuu u tara qabiilkiisa wuxuu u tara lama arko kulli hadda marka siyaasiyiinta weydiisaan nin kastaba dhowr qofoodo oo raba inuu sacbiyo reerkiisa oo soo dhaweysana laakiin reerkii deegaankii ay deganaayeen oo asalka ahaayeen biyo ma siiyey ceel ha loo qodo ma yiri maya waxaan tagay maxamed siyaad bare 20 sano oo dalka xukumay deegaanka reerkiisa jilibkiisa hoose ka soo jeedaan tagay balan balle biyo cabaan ma haystaan bal waxaa dhici karaa Soomaaliya meelaha ugu takhallufsan xagga leeyahay waa deegaanka qabiilka maxamed siyaad bare ka dhashay 20 sano dalka xukumay hadduu qabiilkiisa jecel yahay oo u eexana sida loo sheego waxuu samay lahay ayadoo horumar lahaa soo ma biyo sii lahaa iskool ka samay lahaa horumar ka samay lahaa ka sameeyay baa kama samay mid kastana waa la mid sidaas waxaan rabaa marka inaan isla fahamno siyaasiyiinta qabyaaladda siyaasadaysan micnaheedu ma aha in qabiilka loo danayhaayo ma aha qabiilka waa la isticmaalayaa bal dadka waxaa ugu nasiib daran qabiilka uu ka dhashay nin jabhada hoo qoriyo wata waxaa jira waa halaaga xoolahoodana waa qaatay dadkoodana waa laayay dadkana waa ka hareen waxaa ugu nasiib fiican dadkii aan uu ninkaas uusan ka dhalan oo ruuxna aan ku tashan oo wax barta oo ganacsada oo shaqaysta oo nolol nabada ku noolaada aakhirana aan naar loo dirin la waxa waaye dib muslimna daadinayso ma marka waa siyaasad qabiilaysan qodobka labaadna waxaa waaye siyaasad ganacsi ah laaluush ma aha yaa laaluush waa fiican yahay weli marka la fiirsho meesha anaka marayna laaluush adduunyada waa ka jiraa laaluush ma aha waxayna ganacsi waay xildhibaanku kursigu soo gadanaa isna madaxweynuhu gegadaa la doorahayo as ma tahay
baarlamaanka haddana markii mooshin la rabo in la keeno waa laga gadanaa waaba beec baa joogta waaye waa lacagaa lagu kala gadanayaa lacagay hadda soomaaliya kulligeed lacagay joogtaa marka waa siyaasad ganacsi ah waay siyaasad laga ganacsanayo laba ma tahay midda saddexaad waa siyaasad la isboobayo amba sanduuqaa lagu boobayay 9 sano hore maxamed saad barre mid qorayo ku boobay 10 sano haddana joogno 10 sano oo fowda ahayd waa la kala adkaaway qof kasta qorigiisa uu haystay arta laga soo bilaab ilaa hadda marka waxaa laga shaqeeyo haya si la isku boobi lahaa hadda maxaa siyaasiyiinta Soomaaliya isku khilaafsan yihiin inay isboobaan bay rabaan ninba ninka ka xoog badan inuu boobo rabaa hadduu dowlad goboleed joogo iyo hadduu federaal joogo iyo hadduu xildhibaan rabiyaba inuu boobo rabiyaa wax fairness lagu kala qaadanayo cadaalad lagu kala qaadanayo oo si saxan u kala qaadanayo ku xisaabtan leeyahay ma jirto maxaa yeelay sharciba lama rabo hasmata waa la isbooba marka qodobka saddex asaas rukuniga afraad waxaa waaye dowladda ajnabi ah ayaa ila jirta nin kasta wadamada wuxuu gashanayaa Ethiopia ila jirta Kenya ila jirta Imaaraadka ila jira Qatar ila jirta Turkiya ila jira waa xasaa dowlad America ila jirta dowlad afar ma aho marka dowlad ajnabi ah ila jirta xoogan wax ku qaadanayaa tabarteedu waa yaraa kartaa laakiin marka tabar helo way xooga anigana nimanka ku xoog badan yahay waa ka xooga waa la kala ganacsaha nimanka ku xoolo badan yahay qabyaalad ayaa siyaasadda ku dhisan tahay qabiilka aan dan laga lahayn afar rukni Soomaa afartaas rukni qaanuun qawaaniinta caalamka adduunyada xaraami ku tahay mamnuuc waa diinta islaamkaana mamnuuc ku tahay dowladna kama soo baxayso dhaqankaas dowladda kama soo baxayso dowladda ka soo baxayso siyaasad ganacsi ah aan cadaalad ku dhisnayn oo la isboobayo oo dowladda ajnabiga loo kaashahayo oo markaa ka bacda qabyaalada ka shaqeynayo ma dowlad ka samaysmay dhaqan siyaasadeedkaas dowlad la noqon weynay 1960 ilaa hadeer dadkii isku dayay inay dhaqan siyaasadeedka bedelaan waa la diriray oo kamid yahay aadan cabdulla cusmaan oo 67 la riday waxa lagu riday sharciga loo hoggaansamay lagu riday ma rabnaa la sharci lacagta ummadayaan la xadin waxa la lacagta ana xadna rabnaa waa la xadal lacagti aan samayno hay samaynayeen asagoo intaas ma samaynin madaxweyne u dalka ka ah waxa la kana ma anfacaayo magaasa la riday doorasho lagu riday marca Soomaa isaga ra'iisul wasaarihiisa marka dhaqankaas wuxuu soo jiray 65 sano haye dhaqankaas marka dawladdu kuma noqonaayo marka waxaan iraahdaa Soomaaliya tan ku soo khatamay ka bacdina waxa su'aal insinaa qayb kale u gudbi lahayn marka waxaan iraahdaa dawladnimadu haday naga jirto wadada afgooye xamaraan joognaa Soomaa haday naga jirto wadada afgooye baabuurkaynu wuxuu u raran yahay wadada balcadaan u soconaa marka baabuur raabaqa oo aan soco karin baabuurku waxaan ula jeedaa waa institutionka dawladnimada baabuur raabaqa oo dadka saaran yahay oo u socda ma taqaanaa balcad jidkuna uu ka khaldan yahay darawalki ayaa loo dhiibayaa darawal mechanic ahina loo dhiibayaa marka darawalka markuu muddo socdo wado baabuurku waa istaagi soo weynaya marka soo waaya maxaa dhaca dadku waa ku qaylanayaan darawalka laga dejina darawalka la saaraa jidki waa jidki baabuurkina waa baabuurki shacabkina waa saaran yihiin haya dawladnimada ma laga fogaana ama waa loo sii dhawaana ya kullama uu xoogaa socdo 3 kilomitir socdo waa istaagaa hadana waa sii socohaa 3 kale oo socona balcad uu sii socoyaa afkooya dawladda jirtaa dawlad ma gaarayo marka waxa waaye dawladnimada Soomaaliyeed waxa ka lunsan itijaaha jidka horta lagu haayo jidka dawladnimada lagu wado waxa ka khaldan institutionadii dawladda lagu noqon lahaa aasa khaldan loo dhisay oo dadka aqoonta leh say u kala sareeyaan say u kala aqoon badan yihiin say u kala waay aragsan yihiin madax looskama mid yar oo madax fiiqaha ayaa madax waxa looga dhigaa dad waay arag oo macna leh mid yar oo garaada la iska siinaa sarkaalaha waxa madax looga dhigaa dadka ka aqoonta badnaa ma ka amar qaadanayaan ma ixtiraamayaan waxaas ma shaqeynayaan adduunyada ilaahay systemku waxa waa inuu kala sareeyo kala aqoon ku sareysan waay aragnimo marka institutionkan waa kharbaya
baabuur aan dhaqaaqaynoo kale waa shacabkiina qoraxda ku dhacaysa waa dul saaran yihiin oo tacbaan waa darawalkana waa madaxweyne maalin kasta la bedelaya kan ma fiicna la leeyahay hadda waxaa waa dhawa xasan sheekh ma fiicna asma oo ka horna maxaa la lahaa farmaajo ma fiicna maxaa ka horreeyay sheekh shariif ma fiicna maxaa ka horreeyay cabdullahi yuusuf ma fiicna كل ضرب واي جد خلطني هو صعدان كل قلت كاسبتها إنه ضرب في عيها إنه صرت مو بقى هذا مكانك ما أول وعال ربع بارك الرجال ربع جد كان اللي بدل ربع وعال ربع مركز روح مدح أو صومالي إلهي وكان بيشك إيمان أنا ما أقان إرك كم سود دجاج تذكرنا كل حجرة إنه ودك كل حجرة صورة قلة وقت واكرة وقت راكرة أصبح لكن صومالي بحي سوقي روح يرادا wadadu waa naga khaldan tahay afgooy dadka u sheeg afgooy jirta afgooy aan aadayna kow baabuurkana dhoojiyo oo baabuur socod kala ka dhiga oo dhaqaaqa kala ka dhiga dadkana qanciya afgooyna aada ilaa taas laga keenayo waxaan ku magacaabaa marka exceptional leadership madax aan caadi ahayn asmata boogaas waa magaciisa la yiraahdaa Soomaaliya state in search of exceptional leadership waxa waaye waa leadership dadka la waay cuntada la cuno waay waxay cunaan la cuna lacag aan ka shaqaysanayn sharciga aan jabinayn qabiil aan gaar rabinayn taas ma aho dad gaar aan xoolo siinayn madax waxaa la rabaa dadka inay u shaqayso rumaysan inay khaadim u tahay rumaysan dadka inaysan ka sarrayn rumaysan dadka waxay cunaan la cuna waxtu waxay cunaan la cuna hadday gaajisan yihiin waa la gaajoodaa hadday dhergsan yihiin waa la dhergaa hadday teeraaysan waa la teenaayoodaa oo aan dan gaara lahayn dadka inuu hagaajiya ma ahee sidaasaa lagu yaqaana haasana diinteenu noo sheegi يعني إسلام كان هسه نوشة كوبها هسه نوشة كا مدحض وحي هاد خادم عمر بن الخطاب تصحى أسوقات ما تقاني تنتي اسمه وهكذا يعني كاس مركا إلى أوكي ماذا أيديال واحد شيء سوما مركا الدساس بقول ساس لما ربا مقتاي بدون كسوكايا بدون حالة هذا اللي جوا كسوكايا حوجا أو عندنا بعد أن سيقر حسنا أن قال لنا مقتاي أو يا أورون وكان كمان سعداء وجدنا يا أورون نحن يا ورع سوما تاهرت بقى أنا فهمتان مشكلة ده إنه مدح واي حاجة مدحها وحقرحسة أما وحكو ديش أنت أصرت وحاوي مال موقبحنا وحارب أنا